marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan halkan uga soo gudbiyo dhammaan shacbiga Soomaaliyeed iyo dadkii maanta waxyeelada ka soo gaadhay qaraxa arxan-darrada ah ee la beegsaday shacbiga iyo hantida dadku ay leeyihiin hoteelka Dayax. waxaan jeclahay kow inaan tacsiin jiro labadii oday ku jiray 135 oday dhaqameedyada Soomaaliyeed ka mid ahaa malaaq Allah u naxariistay malaaq malago saaqeero iyo malaaq Abdishiid Sheekh Abdisalaam in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naxariis janna Allah ka waraabiyo dadkay iyo reer qoyskii iyo reerkii iyo dhammaan beeshii iyo odayaashii Soomaaliyeed ay ka tirsanaayeen iyo shacbiga iyo dowladda Soomaaliyeed intaba iyo dowladda koonfur galbeed intaba waxaan ku jiraynaa taasiis taalamida Ilaahay subxaanahu wa ta'ala innagu dhan samiriyo aan naga siiyo iyaga iyo intii ku dhimatay waxaan sidoo kale jeclahay inaan iyagana tacsiyo jiro ciidamadii amniga ku dhintay oo runtii iyagoo gudanaya waajibaadkoodii qaran Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay toori ka noqotay iyagana reerkoodii iyo dhammaan dadkii waxaan ka baxeen iyo ciidanka ka baxeen intaba waxaan isku daraynaa iyagana tacsiina la mid intaa marka laga yimaado iyadana sidoo kale waxay noo taallaa in arrin xanuun badan lagu haysa oo abaaraha dalka ka dhacay oo si safmara uga dhacay meel kastana ay runtii ka taagan tahay dhibaato biyo la'aan gaajo waxaa la yidhaahdaa iyo baad la'aan oo xoolihii ku dhammaadeen oo ilaa 4 milyan oo neef oo xoolaha ay ku dhinteen ima kasta la sheegayo oo warbixinta ku soo baxayso marka runtii waxaan aad iyo aad uga xunnahay inay saa ay u dhacayso Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baan horta awalan baryaynaa isaga ayaa dalkan iyo dadkan ka saari kara dhibaatada horta isaga aan barino dhammaanteen oo inuu gacmaha u taagno inuu Ilaahay naga saaro roob inoo soo dago oo Ilaahay iidankii aan ka bixi karin abaartan naga jabay taas waa midda labaad kulleyba dowladda iyo xukuumadda intaba waxa saaran waajib baa saaran in wax laga qaban karo wixii tamarteena turbata halkii rogmay in wixii tamarteena aan maxaa la yidhaahdaa aan qabanno waxa markaa maanta sida go-aanka ku soo baxay in kow waxaan iska bilownay in laga bilaabo xafiisyada dowladda iyo maxaa la yidhaahdaa golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka intaba in laga bilaabo in horta iyagu ka qayb qaataan oo ay hormood ka noqdaan lacag uruurinta iyo booha sidaa la ajligeed waxaan ka bilownay kow in laga qaado lacag $1 milyan in laga qaado lacagtii laga qaaday ama laga uruuriyey murashaxiinta ama musharaxiinta laga uruuriyey oo baaqiga ka soo haray $1 milyan ay noqotay markaa $1 milyan 800 noqotay halkaa milyan markaa loo qaaday waxaa la yidhaahdaa in lagu tabaruco waxaa la yidhaahdaa abaaraha lagu tabaruco labo in lacag gaaraysa ilaa $2 milyan oo ka soo kala imanaysa marka halkaa milyan laga saaro 300,000 oo ka imanaysa in lacagta contingency-ga ama maxaa la yidhaahdaa gargaarka lacagta degdega ku jirta miisaaniyadda 3 biloodka in 100,000 bil walbaba laga saaro markaa 300,000 oo gebi ahaanteedina loo adeegsado abaaraha sidoo kale golaha wasiirada mushaharkooga iyo waxay noqonaysaa 330 oo bishan Janaayo iyadana in lagu deeqo haddii alla 200,000 waxay ka imanayaan 100,000 oo ka imanaysa bangiga dhexe iyo 100,000 oo ka imanaysa dekedda Muqdisho iyagana in maxaa la yidhaahdaa lagu daro marka lacagtaas waxay guud ahaan waxay noqon doontaa $2 milyan iyo 30 waxaan sidoo kale weydiisanay xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka lacag 100,000 oo madaxweynaha xafiiskiisa 100,000 oo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa iyo 60,000 oo guddoonka baarlamaanka labada 160,000 inay iyagana weydiisanayno inay ku yaabuhaan waana ballan qaadeen khaasatan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu way ballan qaadeen inay markaa taa ay bixiyaan waxa kale aan
iyadana lagu go'aamiyey in lacag gaaraysa 250,840 doolar naga qaado ama laga jiro bishan Janaayo shaqaalaha dawladda A, B iyo C. D waxba lagama jarin marka iyagana intaas isku celcelis intaasay noqonaysaa haddii alla yidhi lacagaha marka la isku daro waxay noqonaysaa 2 milyan iyo ilaa 600,000 ayay noqonaysaa mushaharka iyo marka xafiisyada dawladda lagu daro ilaa 3 milyan ku dhawaanaysa annagu hadda waxaan u tafaxaydanahay oo soo diyaar garoobay sidii maanta looga madadin lahaa in gargaarka bilaabmay in gurmadka bilaabmay dadkeena in marka aan bilowno oo dhamaanteed diyaar u nahay in ka qayb qaadano sidii wax loo gaarsiin lahaa waxna loogu ururin waxaan doonaynaa in qof kastoo inaga mid ah uu bilaabo sidii dadkeena baaba'aya aynu wax uga qaban lahay waxaan jecelahay wax allaaliyo wixii ku suurtagelaysa in dadka lala gaaro inaan qayb ka noqono idinkuna aad nagala qayb qaadataan haddii alla wixii afkaare kale isleedihiin waxbaa lagu qaban karaya iyadana inay noo soo gudbisaan ilaahay idankii si markaa aynu samayn karayno inaan iska kaashano laakiin maanta cid aynu isku tashanaynaa ma jirto innagaa isku tashanayna waxaynu doonaynaa Soomaaliya isku tashato waxaynu doonaynaa waxa hanti aan leenahay inaan kala qaybsano qof kastoo naga mid inuu u diyaar garoobo in maanta aynu tahay maalintii looma kala harayo dawlad iyo shacbi culimo iyo dumar iyo rag oday iyo ciroole iyo da'yar intaba uma kala harayno waxaan doonaynaa inaan ka wada qayb qaadano ilaahay idankii inaan u gurmano dadkeena oo aynu gaarsiino wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kastoo ina siiyey qaniimad kastoo ina siiyey inaynu gaarsiin karayno oo la qaybsan karayno oo dhibaatada haysata aan la qaybsan karayno ilaahay idankii taasaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno hagaagada waxaan doonaynaa inaad u diyaar garoodaan biidni illaahi tacaala in hawl qaran inoo taalo hawl dadkeena inoo taalo marka aynu ka wada qayb qaadano insha allahu tacaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baa u mahadsantihiin